kusoo dhawaad baahaya. السلام عليكم وأنا سامي دمانتين بسم الله marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan inii sheego anigu waxaan ka shaqeeyaa xafiiska la yiraahdo xafiiska isgaarsiinta iyo hawlgelinta qoysaska iyo qaybaha relationship-ka oo dibadda ayaan aad kala shaqeeyaa oo waxaan joognaa xafiiska central office-ka ama xafiiska dhexe ayaan ka shaqeynaa marka su'aasha kooban haddaan isku dayo waxay oranaysaa maxay tahay waajibaadka waalidka ka saaran arrintan hadda soo korortay ee aan ku jirno marka dhowr su'aalood baan rabaa dhowr arrimood baan rabaa inaan ka hadlo marka ugu horeysa waalidku waa inuu ogaadaa asaga macallina hadda waalidkii asagii waa macallina asagii baa principal asagii baa maaragtay behavior specialist cunugii hadday maanta wax ku dhacaan ama hadduu noqdo cunugii isku dayay inuu cunugii caawiyo marka maadaama waalidkii uu guriga joogo xaaladda hadda nala soo korortayna xaalad cusub ay tahay wax lagu magacaabo new normal wax lagu magacaabo oo wax cusub nolol cusub oo nan horay u aqoon taasi oo la wadaagno dhammaan bulshada caalamka oo idil ma aha wax naga gaarno ma aha wax naga kaliya nagu dhacaya laakiin caalamka way dhan bay ka dhacaysaa iyo sida ay saameynta noogu yeelatay saddex dhinaca caafimaadka dhinaca psychological iyo qaabkaan u fakarayno isbedelay dhinaca habka dhaqaalaha dhinaca guriga nolosha waxaas oo idil ayuu marka saameeyay arintii dadaan is arki jirin oo is arkaya marka important waxa weeye waalidku inuu ogaado inuu yahay asagu macallinkii inuu yahay principalkii inuu yahay behavior specialist-kii inuu yahay qofkii cuntada u karinayay inuu yahay qofkii guriga uu nadiifinayay aad bay marka u dhib badan tahay waxaasoo dhan qof inuu noqdo haddana aan loo train garayn aan la barin haddana imagine 9 carruur haddaad haysatid hooyo 9 carruur aad haysato tahay guri yaroo ciriiri ah ku jirtid ilmuhuna ay kala aadaan dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waa ogtahay dugsiga dhexe macallinka ah si gooni baa loo train gareeyaa general education baa lagu train gareeyaa macallinka dugsiga dhexe qaab gooni baa lagu train gareeyaa oo wuxuu og yahay ciyaalkan developmental stage-ka maraya oo korayo oo isbedelaysa dabeecadooda hormoonkooda kor u kacayo behavior-kooda ay ka duwan tahay baa lagu train gareeyaa sida loola dhaqmo maalinka high school-ka asagana waxaa loo train gareeyaa sida loola dhaqmo carruurta dugsiga intaasoo carruura oo isku nooc ah ayaa hal hooyo ay guri ku haysaa isbiiskii waa yari imagine marka cuntadii bay karinaysaa ayagii bay supervise garaynaysaa nolol kaloo caalamka kala dhinaca kale kaga xiran oo afrika xaaladda noocaasa marka imagine garee qof ku jira it's macnaha waa very difficult situation xaaladdaani marka waxay ahayd unintended consequence-ga marka waxyaalaha aan lagu talagelin ay arrintaanu keentay aqoon hor looma laha haddana imagine hooyadaasi aqoon badan uma lahan technology-ga cusub technology-yadan cusub oo qaarkood computerkii laftigiisii uu ka baqaya amaan anigu halleeyaa inta taabto hooyadii waxay leedahay amuu hallaabaa oo dhibaato ku dhacdayo aniga laftigayga aan wax ka riba marka hooyada noocaas way marka talada aan bixinayno waxa weeye waalidiinta maalin kasta carruurtaasi la kulma dhowr tala ayaan rabaa marka inaan siiyo midda koowaad waxa weeye ogow saacadda uu bilaabanayo iskuulka jadwalka iskuulka waxaad ogaanaysaa xilliga uu bilaabanayo iyo xilliga uu dhammaanayo marka koowaad waa inaad kaa ogtahay because waa cunuga xilliga la kicinaya ogtahay iyo xilliga uu istaajinayo taasi waa very important part qaybta labaad log in the computer-ka marka waa inaad gashaa marka aad gashid computer-ka jadwalkiisa waad helaysaa marka internet-kana jeegaree internet-kaad fiirinaysaa waa jeegaraynaysaa internet-kaadu inay shaqaynayso waxaa laga yaabaa badanaa waxaa dhacda dhowr arrin baa dhacda in xalay computer-kii shaqaynayay saakay uu shaqayn waayo xalay mid yar baa habeennimo kacay waa farafareeyey baalkii waa qarrib internet-kii waa ku xirmi waay hooyada telefoon bay qaadanaysaa minaamis public school bay soo wacaysaa iyadoo qaylinaysa wax shaqaynaya meeshaan ma jira maxaan sameeyaa marka waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee markaasi ay face garaynayaan marka intaas galaas ku bilaabin loo garee isku day inuu shaqaynayo minaamis public school waxaan u qaybinay gugii la soo dhaafay computerka chromosome-ka hooyooyinka iyo waalidka aan haysan internetkana waxaan siinay wax la yidhahda hadisbad teleefon yar bahal u eg oo soo qabsanaya internetka computerkana ku xiran computerradaan siinay dhammaantood waxaa la geliyay programka ay u baahan yihiin oo idil inta aan loo keenin aan guriga loogu soo deliver garay
si waxaanoo dhan aan u eliminate garayno problemkan jira so manaha inaad ogaatid markaasi computerku inuu shaqaynayo tan ugu dambaysa kaamarada computerka waa inay on tahay hadday on ahayn oo macallinkuusa arag cunugaas inuu maqnaaba u malaynaya tan kale oo meesha joogta waa inuu codkuna on yahay oo cunugu uu maqli karaa codka macallinku markuu hadlayo waa inuu maqli karaa codkiisii marka intaan waa qaybaha importantiga uga qaybaha kale oo aan rabaynaa in la qaybsado waxaa ka mid ah especially place guriga waxaa ugu samaysaa meel cunuga u samee meel gooni ah oo uu fariisto guriga uga samee haddaa marna maalina xagga fariisid wuu wareerayaa halkani waa qaybta iskuulka oo waxbarashada kombiyuutarkaadaa ku yaalla halkaasaad maalin kasta fadhiisanaysaa waa midda koowaad midda labaad waxaad isku dayaysaa cunugaada wakhti gooniya inaad u qabatid xilligaa markii la gaaro waxaan kaa rabaa inaad meeshaa fadhidid halkaasaa fadhiisanaysaa xilligaa markii la gaaro halkaasaa fadhiisanaysa kombiyuutarka inaad fadhidid baan rabaa ka hor waa inaad diyaargarowdaa cuntadaada cuntaa adoo meesha fadhiya inaan ku imaado midda kale oo isku dayi karti waxaa weeye cunugu wax allaale wuxuu u baahan yahay alaab ah meesha u dhig inta ugu soo ridid box sababtoo ah markuu wax kasta haysto way fuudahay shaqadii inuu qabto marka aan ku leeyahay ugu soo gur meeshaan ma inta badan excuse buu samaynaya wuxuu ku leeyahay qalinkii baa iga maqan warqad baan soo qaadanaya waxbaan qoranaya saan baa yele tan aan idinka sheekaynayo ma aha waxaan mala awaalayo 5 carruuraan leeyahay guriga ayaan ku supervise garaynayay wax allaale excuse kastoo ay keenaan waa qor si aan u ogaado aan u eliminate gareeyo excuse-ka xasuusnoo marka materialka u baahan yahay intaan iskuulka la furin u diyaari meelna u dhig waana meelu ka gaarana u dhig tan kale waxa weeye distraction ilmo yaryar baa jira oo kombiyuutarra haysta oo wax haysta agtiisa ka fogay ciyaalka kale kuwa yaryar baa jira oo uu leeyahay midkaan yar maalku maanta dhan ku ciyaaraya aniga maxaa liigu diidaya kiibuu ku qabsanaya ama mid yar baa kombiyuutarkiisii ku dhegaya kaa yarna ka fogee oo meel kale gee asagana haddaad haysatid space kuu masaabaxaya inaad geysatid which aan ogahay inteena badan inaan nahaysa marka isku day urga yar inaad ka qaadid taleefanada agagaarkiisa dhacaya distractionka waxaa lagu magacaabo oo macnaha mar kastaba qofka dhibahaya urgan ka fogee haddii kale excuse buu ka dhiganaya asagana wax ma baran karo waa inay meeshu noqotaa environment quiet meel degan haddana ammaan ah meel degan oo ammaana waa inay tahay qodobka kale waxa weeye asagana isku day urgaada in aad bartid sida wax loo organize gareeyo wax markuu haleeyo adiga ha u aruurin because maalin kasta ma aruurin kartid how long baad wadaysaa maalin kasta inaad aruurisid waxaan isku day inaad bartid asaga inuu wuxuu isticmaalay meeshii ku celiyo haddana inuu kilin gareeyo meeshii asagu uu isticmaalay inuu asagu nadiifiyo ha u nadiifinin adiga taasi waxay baraysaa inuusan responsible noqon oo maalin kasta adigu aad ka daba shaqaysid very simple ku celceli 21 days buu u baahan yahay cunugaas inaad maalin kasta u sheegtid maalinka 22 ay 22 noqoto asagaa samaynaya haddaad ku celcelisid behaviorkiisa saa wax uga bedeshid qodobka kale waxa weeye internetka markuu galo supervise garee mararka qaarkood meelo aan loo baahnayn buu iska gelaya meelo aan jirin buu aadayaa oo aan loo dirsan markuu meelaha aan loo dirsan aado waa inaad ka soo celin kartaa oran kartaa may galaas 10 baa ka shaqeynaysa 10 ka shaqeynaysa ama computerka waa inaad ku rakibtaa wax kuu sheegaya parenting protection ah oo sheegaya inuusan geli karinba inaad ka baloggaraysid wax allaala wixii kale oo kaa keliya uu geli karo waana la samayn karaa technologically waa la samayn karaa tan kale waxaa jira arday badan oo high schoolka aada ardada high schoolka aada waa inaad bartaa sida internetka loo isticmaalo khaasatan la isugu xiro library-yada kale inuu isticmaali karaa isagoo gurigiisa jooga waayo buug ma haysto shaqaa loo soo diray aw library uu aadi jiray library ma jiro marka waa inuu bartaa online library-ga sida informationka looga soo qaato oo loo isticmaalo waa inaad taasna aad cunuga tustaa haddaad awood u leedahay midda kale oo ayadana ku xigta waxa weeye cunugaada expectation waxa aad ka rabtid u sheeg hooyo waxbaraha oran hooyo buugga akhriha oran 3 page akhri 2 page akhri 1 page akhri 1 saac akhri 2 saac akhri 30 minutes akhri at least u sheeg cunugu wuxuu rabo inuu qabto haddaadan u sheegin oo akhri tiraahdi wuxuu ku weydiinayaa ilaa imisaan akhrinaya meeqa page baan akhriyaa so waxaada specific ha noqdo
waxaad cunuga u sheegaysid specific waa inay noqdaan wax cad waa inay noqdaan waxaad akhrinaysaa 30 minutes 5 daqiiqaad leedahay oo aad meelaha ciyaari kartid 10 daqiiqaad leedahay aan ku siinaya markaad 30 minutes akhrisid waqtiga ma fadhin karo cunuga adiga weyn haddii meel lagu fariisiyo 2 saac fadhi lagu raado ma fadhin kartid waxaad adigu samayn karinna asaga ha ku khasbi oo maxay tahay meeshaan maanta oo dhan fadhi akhri maya waqtiga u yaryare okay 30 minutes intaana qaadanaysaa 1 hour 10 minutes haysataa dooro adigu 1 hour haddaad shaqaysid waxaad maqnaan kartaa 10 daqiiqo haddaad 30 daqiiqo aad fadhiyid waxaad maqnaan kartaa 5 daqiiqo oo keliya adigu marka dooro alwaysna choice si cunuga mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad laba biyo adiga aad rabaa shaatiyo adiga aad rabtid cunugaada labadoodaba u keentid oo aad tidhaahdid hooyo ma waxaad rabtaa shaatigan mise kanaa rabtaa asagu wuxuu u malaynayaa inuu asagu arrinta dhan kontroolayo kanaa rabaa buu leeyahay adaa mar hore soo go'aansaday ma fahmaysa adaa mar hore go'aansaday soo adiga waxaa rabtid meesha soo dhig kala dooro dheh kadib wuxuu dooranayaa labadooda miduu qaataba adiga isukaa mid weeye marka badanaa sii joyce cunug okay maxaan akhrinaynaa maanta marra buug baa la akhriyaa waxaan rabaa inaan san akhriyo kan akhri marka okay qaybta kale ugu dambaysa waxa weeye expectationkaada ha caddaado responsibilityga wey cunugu markuu semester kasta dhammaado isku day inaad award siisid ama aad aqoonsatid ama aad celebrate gaysid oo celebration samaysid xaflad samaysid okay waxaan dhammaynay one semester waa guul waa naga dhammaaday semesterkaas maanta inta waxaan ku samaynayaa maadaama semesterkan iskuulka ka baastay oo wixii oo dhan wada dhammaadeen cunuga marka uu ku xisaabtamayaa semester kasta oo uu dhammeeyo in wax loo samaynayo expectationkiisa waa maxay haddaan dadaalo abaalmarin baa jirta marka taasna isku day inaad samaysid qaybta aan rabo kale su-aasha labaad ee la weydiiyey ayadana ayaan rabaa inaan u gudbo waxaan rabaa inaan dhowr arrin oo kale ciyaalku ay la yimaadaan carruurta ay sameeyaan inaan idiin sheego oo in la qaybsado waxaa ka mid ah inaad cunuga bartid building responsibility and accountability mas-uul inuu yahay haddana mas-uul inuu yahay inaad la xisaabtantid wuxuu mas-uulka ka noqday inuu sameeyey iyo in kale inaad kala xisaabtantid ciyaalku maxay samaynayaan wuxuu samaynayaa cunuga yar inuu badanaaba keeno excuse ha ogolaanin excuseka cunugu uu keeno diid waxaad leedahay marka stop making excuses jooji cududaarkan aad meedo waxaan ma samayn karo waxaan waa dhib badan tahay ma iska daa waxaana igu dhacay saanaa dhacday waa samayn waaba hay ka yeeli waad samaynaysaa haddaad hadalka aad tiri noodaadu ay noo tahay wuxuu isku dayayaa inuu yees kaa gaarsiiyo suu maanta dhan kuugu wado adoo marka dambe oo orayga tagaa tiraahdid qiiladiisa intay u dulqaadan weyda marka u sheeg marka runta u sheeg waxaad tidhaahdaa maya excuse ma jiro no excuse kan kale marmarka qaarkood calaacal buu bilaabaya ha yeelin calaacalka ha ka yeelin wuu samayn karaa waa inaad buush garaysaa inuu sameeyo wuuna samayn karaa waad samayn kartaa iska daa calacalka shaqada qabo tan kale oo ugu dambaysa iyadana aan rabo inaan u sheego bar sida loo manage gareeyo problemka asagu ha xalliyo ha u xallin adiga xalli dheh mararka qaarkood waxaa dhacaysa guriga adoo joogo ciyaalka haya in adiga homeworkii uga shaqaysid si arrintan u dhammaato ha uga shaqayn taas ma caawinaysa mustaqbalkiisa bar problemka asaga intuu xalliyo intaa adiga ugu shaqayn lahay waayo taasi hadhow marka imtixaanka laga qaadaya adiga ugama shaqayn kartid taas waa very important ayadana qaybta kale oo ayadana muhiimka waxa weeye procrastination hadhow baan samaynayaa may hadda ma samayn kara hadhow baan yeelaya ha ka yeeli procrastinationka waxa weeye gadaal buu u dhiganayaa ilaa adigu uu ku ilowsiiyo hadhowna macallinkii uu gareerkii soo diro oo leer galaaska waa ku dhacda ha ka yeelin marka taas tan kale ugu dambaysa adiga hadalkaada ha isbabedeli haddaad hadal tidhaahdid hadalkaadu sa ha ahaado mar kasta ku taagnow adiga dariiqaas adiga haddaa isbedesho marna tidhaahdid okay maanta waa ku ogolaanaya laakiin mar dambe kaama yeeli ha yeeli adiga hadalkaadu hal nooc ha noqdo haddii kale cunugu wuxuu u malaynayaa so mararka qaarkood wuxuu ku leeyahay hooyo been baad sheegtaa abab waxaanaad sheegtaa hana u sheegin been si adigu u necab tahay been in laguu sheego ula nabcow ayagana been inaadan u sheegin waxaa u sheegaysid run ha noqdee